بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahad celinayaa Allah inaynu isugu nimi kulan khayr qabaynu uga mahad celinaynaa inoo suura galiyay kulanka wanaagsan ee quruxda badan. Ilaahay baa mahad leh. waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa maamulka jaamacadda bariga Afrika laanteeda Buuhoodle. waxa aan doonayaa inaan ka hadlo hagardamooyin ku socda muslimiinta Soomaalida ah. hagardamooyinkaas oo si guud loogu baraarugsanayn oo lagaga mashquuliyay shaashad weyn oo ku talagal ah qorshayaal ku talagal ah oo looga dhigay wax muxuu ahaayay lagu mashquulo baynama dadkii hagardaamada waday ay iyaguna fushanayaan sidii ay u doonayaan u fushanayaan. marka waxa sababaya beegsigoodana la beegsanayana waxa sababaya dadkan islaamnimadooda. dadka Soomaalida ah boqolkiiba boqol waa islaam, in diinta ka noqotay mooyaane, laakiin dadku waxa weeye asalka Soomaalidu waxa lagu yaqaanaa inay islaam yihiin. ma lihin sidaad ka warqabtaan yani dad tiro yar oo aan diinta islaamka haysan inay dhulkeena Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin dad Soomaaliya oo la yiraahdo wallahi reerahaasi ama deegaankaasi waa aqaliya غير muslima la majlihin ama in kooxdaasi waxa weeye waa yahuud مثلا ama waxa weeye waa kuwa sheegta ma inay raacsan Ciise alayhi salaam mana raacsanaa cid noocaas ma jirto. laakiin waxa weeye dhinaca dhulka Soomaaliyeed uga dhaqaaqdaba waxa weeye dad islaam ah ayaad ma ugu tagaysa. arrinkaasi ma farxad gelinaya cadawga islaamka, argagaxna wuu ku reebaya. marka waxa weeye dad islaam oo boqolkiiba boqolayna waa taan qabo anigu ay Soomaalidu maanta ay dawlad xoogan wali u yeelan weyday oo loo curiyaaminay markasta. marka waxaan leenahay waxyaabaha aan ka hadlayno waxa weeye dadka muslimiinta markii la ogaaday waxa weeye hagardamooyinkaas joogtada ah lagu furay. meesha ugu khatarsan ee laynaga soo galay waxa weeye dhinaca waxbarashada. meesha cadawga islaamku uu inaga soo galay waxa weeye dhinaca waxbarashada. waxbarashada marka laga hadlayo waxbarashadu waxay leedahay manhaj bay leedahay. manhajka dariiqada qofka soo saaraya manhaj baa jira qofka sameynaya takwiinaya. bal adigu isweydii manhajta dhulka Soomaaliyeed noocee shakhsi noocee soo saaraan ama siday u dajisan yihiin haddii aad qiimeysay qof noocee soo saaray. xaqiiq markaynu ka hadlayno qofkii la rabay ma soo saarayaan ka aynaka markaynu xambaasanahay hammi ummad muslimiina qofkii shakhsiyadii yani muxuu ahaayay laga rabay yani shariicadeena islaamku ka rabtay fikirkeena islaamiga uu doonayay ma soo saaraya manhajta ku yaala dhulka Soomaaliyeed. xaqiiq marka laga hadlayo waxay soo saarayaan dad aynu u malaynayno inay aqoon soo barteen oo laakiin la gubay oo la dhalaaliyay oo yani aad dareemaysid muxuu ahaay waxa weeye in wallahi qofkan wax ku soo bartay laakiin sidii aynu u doonaynay aynaan ka helayn baa muxuu ahaay manhajteena soo saartay. manhajta noocaas ma inaga dhiganay oo samaysanay maya. inteena wanaagsan anigu inteena wanaagsan waa intuu Ilaahay muxuu ahaay ku tilmaamay wanaagsane. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وناجا على قيمك أو تقييمك إيه مقياسك إيه معيارك وإلهي وسميه وناجا وحوي وتقوى سما إنك استهاد أنا يشرين أنا نقول رقمين لكن هدي أينو إنتنا وناكسن أينو دي باللهين إني منها تنوديكتو ما واحد صار لهاي كون أن ما أنت كشكاينيو ما نوديبن لكن وحوي ضدش الشيء ضد إنه عدو وأنا إن لبب هاي أنا إنا هاي نستاح إنه هاين أيا إنه ديجا منهج ضد كنوع عاسى أيا منهج كإنه صمية مركا قف عدو جاجا هي مركو صامين أيو محو كودة شنية مد السجا أوج أما السجا أذيجية أيا لصوصاري بدل النوعية أيا لصوصاري ارتحالك إنه كتبني وهالكاس مصيبة وجويني وحوي مناهج تقارهان وحنكات ضيا دكسية إن النظام جاه أساسي جاه دكسية الناس وحي صار يعني كسب بلو دكسية هو سر حسرة وحي صار تاس وحوي منهج أين النقود جنبنا نلاص مستي أو صار يا شخص جي للربي هو مركز إنه الدين تين الإسلام كالربي سيدي للربي أنو صار ويا كبكالة تاس أو منهج كان لفتيسة وما يسوي ديسة ولا حاجين كأني قاب كان أين وحبرنا لفتيسة أما قاب كان أين وحبرنا ما هي مد فائدة له قاب كان لذا كان لبيه طبعا كسرنا ضوء اللي لو سمي اللي يرد دكسي دحى دكسي هوسة دحى سراء نظام كان نوع عاسى يقاب كان لو مرة يوكل قاب كان نظام كان نوع أنا المها يرمر كل حشريها تدو بحشريها إلا ساق بنا يلا إلى سكول كي مقلع هنا كوح مبرتا فسلك يوم مرة يلا سويديني ما شاء الله دي دكسي قال نظام كان نوع عاسى يكود شيء ما سويديس هذيك كان مسلمين هاندن مكوية هذا أن جواب تكرر باي لكن وحن كسينا يا تصالح مركان تصالح كسية جواب تلا صبح وحوي مركز لقات ورميو أئمة إمام يدا أفرت مذهب وعنسن تاريخ نولود كودا مركز لقا ورميو وحا لا يرى وحو قيبي قرآنك في صدر حياته نولوشي بلوجيد وحا قيبي قرآنك إساقو تدبجرا كدب وحكو حتيي وعلومتي إسلامك وكدب ساسي وحتي قرآن كوكب لا بشري لغة عربية حديث رسولك صلى الله عليه وسلم يعني ترتيب نوع سو علومتها إسلامي قابل لغة بلا بشري وكوا يعني صوص هاري بركا يعني فهمك أي أفهمين دينة إسلامك سيدا أفهمين ونك كفايدة سننا فقهك أي فهمك أي استنباطك أحكامك أي كرسوا بحين شريعتنا إسلامك وكوا ما أنت أي يضو الديارة أي نكون راح يسنين دتكاسي وحوية تاريخ دودا وحي هيدان مرلبات كوكو عليه إني برتان علوم شريعة الإسلام بداية لكن لقوا مدلالين أو لقوا مجبين نظام كان مدليس كأهوارك تدا إذا شرع مكة لقوا مجبين لقوا منا بابين وياه لكن قفك هدي مكة أي تي ولا جتكي تي نوع هيد ومدني مسلمين تهيد أي كعانة مع شيء أي كبرادي أي نرش ونعكسن كه شيء ولا جتكيو وحلقات النظام أي نوع كأنين ضد إنجا إن لبهم هايبا أفكار هين إن الدين أهين بأي كأنين والنظام كان وحبر الشو تن مركب المها يرلق حيو يسقى أوتو دبشرة لأن هذا سكولك بوكله وحلو يقانو سكول سومالي كدوكسي كانوا قناة يلا قلني دوكسي هوسه قرآن ملقو برتا ملقو غيبا علوم تشريعات الإسلام كسيدة ده ملقو برتا مايا شون مركن دورينو قف فقيها أو دينتي سفهنسن كوسو صار ما يدوكسيو شون مركن دونيسان
laakiin waxa weeye in la isku khaldayo oo waxa weeye waa malab waxbarashadu waxaan idhaahdaa waa malab subag lagu daray aan idhaahdo sun lagu daray idhaahdo waa malab sun lagu daray nidaamkan in wax la barto waa jayid laakiin in yar oo la isku khaldayo sida aniga ii muuqata xogaa quraana xogaa xadiisa ayaa la yiraahdaa waxa weeye waa markaas loo fahmaya in wallahi diintiina loo dhigaa tarbiya islaamiyada loo dhigaa ma sha Allah wallahi meesha waxba wanaag baa soo socda ayaa qofka lagu khaldaya baynama laakiin manhajku saa uma socdo tarbiyadana ma socdo hatta tarbiyadan islaamiga loo dhigayo ayaan ahayn qaabka loo dajiyay qaab kii loo baahnaa ee saxda ah ee laga doonayo shakhsiyada islaamiga yani muxuu ahaa ham islaam xambaarsan oo muxuu ahaa bulshadan naftiisana wax tara ummadana wax tara maaha marka guud ahaan nidaamka tacliimiga ahi yani runtii waxa weeye wuxuu noqday muddo lagu soo tijaabiyay la soo tijaabiyay waxa weeye wax muxuu ahaa wax inoo tara lama arag isma diidayaan waxaan aan ka hadlayo iyo muxuu ahaa in la barto culumta maadiga ah in la barto iyo culumta islaamiga ah shariicada islaamka in la barto isma diidayaan laakiin waxa weeye qaabkii loo baranayay manhajkii loo marayay nidaamkii waa manhaj weeye sidii loo baran lahaa ayaa dariiqad muxuu ahaa aan inaka inagu habboonayn marka hore lagu ababiyo qofka muxuu ahaa diintiisa kadibna muxuu ahaa waxa weeye waxaan kale culumtan kale waxay ugu yeedhaan sayniskii ugu yeedhaan xisaabtii ugu yeedhaan juqraafiga ugu yeedhaan way imanaysaa wax way u baranaya qofka waana wax la tijaabiyey oo ardayda quraanka hor qaybta ayaa xarfaan ku noqotay culumta maadiga marka horta halkaas waxa weeye manhajkaas waxa weeye waa manhaj runtii ina la haray oo yani muxuu ahaayay nala ku curyaaminay si dadban baa nala ku curyaaminay bartaadoo fadhiyo oo aan hub lagu soo qaadan ayaa bartaada lagu muxuu ahaay curyaaminay arrinka ugu muhiimsan intaan meel la gaarin ba waxa weeye waa waxbarashadeena iyo manhajkeena iyo siduu u socdo oo wax laga bedelo waxaan qabaa anigu haddii aynu helno manhaj wanaagsan oo ay inoo dhigeen dad aynu ku kala soonahay xaggeena ka wanaagsan inuu isbedel weyn inagu dhacayo ayaan qabaa oo dhinaca wanaagsana siibadeebaynu uga hortagi karnaa manaahijta dugsiyada lagu dhigto aynu ugu bedeli karnaa manaahij ummadeenna jiilkeenna iyo dhallinyaradeenaba anfaca السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كود ذلك ياسي أن فرصة بدنوها الله. هذا يذكرنا فرصة عشان إلى دين سؤال بنوها كينتان. إن نخسو جوابه إن شاء الله بإذن الله الكريم. عبد الشكري ولالكي أيار بنوها ياي. waxaa uu su'aal aad u muhiim ah sidee baan u bedeli karnaa yani manhajkan hagardaamada manhajkan ummadda dhibta ku ah ee aan anfacayn sidee baan u bedeli karnaa waxaan u bedeli karnaa inaynu inaku muxuu ahaay inuu codku xaggeena ka yimaado inaynu dalbano doono ana waxa weeye mar rabno kaasaan doonin ayaa koow horta ku imanaya rabitaan xaggeena inuu muxuu ahaay labo waxa kale oo ku imanaya kulanka wacyigelinta ah oo kale aan iminka qabtay in la ballaariyo oo laga sheekeeyo dad badan baan fahansaneenba oo aaminsan inuu manhajku caadi yahay inaynu marka hore dadka fahansiino inuu manhajkani inaanu anfacayn taasina waa sida labaad ee muxuu ahaayay uu ku imanay qodob saddexaad uu ku imanayaayo waxa weeye dadka inuu hogaaminaya ee muxuu ahaayay ay gacanta manhajku soo galayo ee saameynta ku leh manhajkeenu inaynu dadkii ku habboonaa u doorano ayuu ku imanay laakiin mid nooc kale ah oo aan inala mabaadi ahayn oo aan hagaagsanayn hadduu gacanteena ugu hayo maxaad ka filaysaa waxba inoo keeni maayo anigu taasaan qabaa inaynu muxuu ahaayay ku iman karo manhajka muxuu ahaayay aynu doonayno